waaye waxaad joogtay markaa xukunkii ayaa ku xigay 3 Juulaay 1992 markaas maxkamadda ka shaqeynaysa kiis weyn oo meeshan ka dhacaya oo ah dilkii saraakiishii ciidanka raggii lagu eedeeyay inqilaabka General Salaad Gabayre Kediye oo 39 jir ahaa General Maxamed Caynaansho Guuleed oo 48 jir ahaa Cornel Cabdullaahi Dheel Cabdulle Islaan oo aan isagu da'diisa la sheegin inta uu jiray markaas xukunkaas ay u dhacay maxaad ka xusataa xukunkaas wuxuu ka mid yahay xukuumadda dacwooyinka waaweyn la dhihi karo maxkamadaas gashay wax badan ma ahayn markii kiiskii dilkii presidentaha kow la yiraahdo kana ku xigay General Gabayre iyo Caynaansho iyo Dheel waxa ku sii ugu dambeeyay kii kale 78 la yiraahdo niman dhalinyaraha inqilaab isku dayay Cirrayo 17 qof ayuu ahaa u maleynaa maxkamadda dhan lagu sheegaa oo meelaha laga sheego waxay qabatay waa un saddexdaas kaliya inta kale waa qof dilay waa warqado been abuura waa qof qabiil faafiyay waa qol lacag lunsaday ha wakaas ugu daran lacag lunsaday ay qaadaysi waxa weyn oo laga dhigay meelaha waxaan ka maqlaa idoo la leeyahay habeenkii meesha madaxweynuhu soo amraa in qofkaas saas la yeelo iyo kulliba anigu inta aan ka warqabon galay aan sheegay moogtahay meesha ba lagu qaadaa lama kala tago xataa lama yiraahdo bariyan go'aan gaarina xataa meesha lagu gaaraa markii ay dhamaato dacwada dhageysadkooda oo dokumenti la keeno oo dad dhaaranaya la keeno oo avokaatyaalka qof aan qareer lahayn waligiis ma dhicin meeshaas in la geeyo waligeedna habeen lama qaadin dadkana looma diidin waa la fiirsanaya waa public kulli kuwan ku jiray iyo kuwan ku jirin ba intaba aan kiiskii ku horeyna markaa xukunkii dilka saraakiisha nimankan waxa lagu soo eedeeyay markan maxkamadda badbaadada dhisantay maxkamadda badbaadada waa laba qaybood dacwo oogidda qolyahaas wax soo baara iyo maxkamadda oo ah go'aanka gaaridda marka qolyihii go'aan baaritaanka yaa soo diyaariyo waxay marqaatiyaal hayeen iyo waxay warqadaha hayeen iyo alla keenay meesha maxkamaddu intaas bay dhageysataa maxkamadda dhibaatada ugu weyn ama waxa ugu weyn dhibaatayaan dhaheena waxa ugu weyn oo laga sheegi karo oo ugu weyn oo meel laga maraan leeyahay waxa waaye appeal ma leh taas ninkii ku noqo oo sheega aniga xataa markaata aan noqonaa ilaa marka xukunka haduu dhaco waa khalaas ama khalad ha noqdo ama sax ha noqdo ama sharcigii hal la dabaqo waa kama dambeys xeerka wax lagu qaadayo marka wuxuu ahaa xeerka lagu qaadayo wuxuu ahaa mid maxkamadda badbaadada loo sameeyay iyo xeerar loo sameeyay dadkii inqilaab isku daya ama xoolo dadweyne qaata waxaas oo dhan iyo sharci cusub loo sameeyay yaa qoray marka xeerkaas markii askartu ay talada la wareegtay waa la sameeyay kii hore badankiisa meel la iska dhigay kii lagu dhaqmi jiray penal code meel la iska dhigay waxa lagu dhaqmay xeer cusub oo kacaan ku leeyahay ama askartu leedahay ayaa la sameeyay oo xukunka lagu ilaaliyo oo maxkamaduna ay ku dhaqanto oo aan appeal lahayn appealka kaliya oo jiri kara wuxuu ahaa in madaxweynaha loo cawdo cabasho u geysato xukun kasta marka la gaaro waxaan ognahay in madaxweynaha la codsi loo dirsan jiray oo qofkaas uu dalban jiray in fursad la siiyo marka maxkamadda go'aankay gaarto go'aan kasta ay gaarto madaxweynaha waa burin karay Soomaa waa burin karaa buris kale lama dhigi karo afis waay qofka marba hadda aragto in madaxweynaha la aado
وعفس ما أوجي أدو أبيل لما ديكرو إلى أبيل محكمة يدوجي أدكيس كرتا موجي واي أبيل ما مرك أبيل ما لما ديك مرك واختيار كيس قفكو ربو عفينا يا قفكو ربو أفكر معه واي مرك محكمة يسقى لها إذا قال ها وأنا مدحونيات إنه ولي هنا عفس أوجاو مع قليا أسكرت كلية واي إن كيس كيا مرك فقمي محل لي مد ماشى أو دعوة أوجوه إيش كل شيء قاعد مكان أنا ما حسست وحى عينان جنرال عينان شيء عبد القادر دال ما حسست وحى لو شيء iyaku marqaati furaya ma xasuusto laakiin gabayran xasuusta oo leeyahay haddad buu la hadlay yiri waa inaan wax sameeyno waa inaan yaa maraq furay marka meesha la keenay waa badnaayeen hadda dadkii ma xasuusto askarna waa jirtay niman shibilna waa jireen aduu marqaatiyaal la dhageystay markaas maxkamad laakiin wali ninama keenin wax cadeyna oo ah ciidan la soo dhaqaajiyay iyo plan la fulinaayay iyo goor la fuliyay iyo kulli waxa dhigi karaa waa wax minda maskaxda gabayr ku soo dhacday isagoo waxyaalo badan tabanaya waay oo dadku badan waxay dhaana ogaatyaal badan adafacay waxay yiraahdeen ninkan muxuu sameeyo tilaabaha uu qaaday oo la dhigi karaa waxa soo sameeyay waxa soo fakiray wax kale waay wax fakiridna iskuma dili karo ama la iskuma xukumi karo laakiin waxa la rabaa ninkan abaabul ciidan kuma jirin abaabul ciidan balan kale oo waqti loo sameeyay falgarasiyo ma jirin adigu waliba sanad gabayraha xoogaa dhaqdhaqaaqaas iyo lagu tuhmayay labada kale oo mid askarta waa hore laga saaray abduqaadir dheer yaa lala yaabanaa waxa ay yihiin anugu ma arkin xukunkii waxay gooyeen oo sida midka cabdirashiid kii dilay madaxweynaha aanu arko kale kan umaan arag weli laakiin waxay maxkamaddu cuskatay oo لكن أفوكاتال بدنا جوجا من ده تضبط يسدد أفوكات كيبل لبا أفوكات لها مركب ولا كان ماشى ولا كيس ولا كان ولا سيودي ولا سودي أنت دعوة السعودة لكن واكبرنا يدك غير واحد يسدح واكبرنا يدك لا كوجري كوان ما هو قدام لكن أي سدح كلي هاي سدح بسها سدح ذا سركالي حير أيوة dadkii marag furay meelaha qaar waxa la qoraa oo dadka qaar ay sheegaan in dad odayaal ku jireen dad badan marqaati furaa la yiraahdaa marqaatiyaasha marka ma public meesha soo istaagayeen waa la arkay bas warqaday keenayeen ma public way ma jira marka in la yiraahdo general Cadde Muuse waa ku jira Abdullah Muuse waa ku jira general Cadde Muuse wax la weydiiyay ana xasuusan Abdullah Geedi Shadoor in la yiraahdo oday waa ku jira asna Maxamed Sheikh Usmaan waa ku jira yiraahdaan oo marka maxkamadda ka noqon doona maxkamad marka hore waa ka tagay waa ka tagay maxamed sheekh Usmaan waa ku jira la yiraahdaa marqaatiyaasha taasna ma qobol laakiin kulliba maxkamadda waa ka tagay oo maxamed geela bedelay markaas xukunka maxamed geela gudoomiye ah waay ragga marka waxay sheegaan ma xasuusta haddii la arki lahay go'aankii maxkamadda waa xasuusan la arki lahaa laakiin laakiin nimankaas inay meesha joogeen maxamed sheekh Usmaan ma hubo laakiin Geedi Shadoor iyo general Cadde Muuse iyo waxa xasuusta waay waxa kaloo meesha xukunka kaliya dilkooda ma ahan waxa kaloo la xukumay oo maxkamaddu xukuntay in hantida dadka la wareego anu sharciga sida dhigaya oo rejimaha militariga oo keensaday ninkii dambigaas lagu helo in xoolahiisana la wareego marka agoonti waa la dhaxal wareejinaya waay marka ilmuhoodii meesha ku dambeeyeen waxay ahayd in xoolihii laga qaaday guriyihii laga saaray oo dhibaato la kulmeen waay adiga marka kiiskaas markaad qiimayso ka qareen ahaan oo aad dib waqti fiican ilaahay waa ku nooleeyo aad dib u xusuusato qaladaadka kaaga muuqday duldaleelada kaaga muuqday maxay kula tahay waa badnaayeen waa waxa aan leenahay maxkamad maaha
haddiise abiil lahayn hadduu marba abiil jirin abukaatiyaalkuna waa arkayeen ilaa waxyaalo badanay sheegayeen hadda aanay korka ka xasuusan oo dhaliilo ah ama baaritaan ka socod ha noqoto ama fasiraadda qaanuunka ha noqoto ay sheegayeen maalintii maalintii yaan dheeri hal maalin kaliya ma hayn intaasoo dhan waxay u baahnaayeen oo aan laga maqlin abukaatiyaalka oo aan laga dhegaysan in maxkamad dhegaysata la geeyo sida nidaamka caadiga uu yahay ama qof kastoo maxkamad ama garsoor raba oo sugayo marka maxkamaddu ma madax bannaanayn calaa kulli xaal maxkamaddu ma madax bannaanayn waxay ku xiran tahay hadba kiiska ay qaadayso kuwa aniga aan ka qayb galay marna ma dhicin in xataa beriya la soo saaraa wax inay dhacday waa jirtaa in la yidhaahdo xereeraaliyaha weydiistay ee markhaati maqan oo muhiim ah kuwa ka mid ahaa la sugaa intuu ka imaanay haddana saddexda garsoore waa intaan anigu ku jiray kiisaska labo meesha isku raacdo yaa go-aanku noqonaa sida hadda aad maxkamadaha aad ka aragteen midda internationalka Hague oo kale iyo maqan dalal kale haddii jiraan iyo dalkan ingiriiska maqan xerkooda waa la yaqaan garsoorka wax diiday iyo kan ogolaaday waa la yaqaan nidaamka anaga maya lamana sheego lamana qoro marka waa la isku qalan yahay laba meesha isku raacdo waaye waa nidaamka anagu aan asaas ahay marna ma garanaysid garsoorahaas go-aankiisi adigu kuwaad gashay marka ayaad go-aan ka gaartay waxaa kamid ahaa ayaan cidda kusoo faragelin kulli inta kiis aan galay oo ah qof dilay qof hanti dowladeed qaatay qof qabiilnimo faafiyey qof waa un intaas kuwaas sidaan kuu sheegayna saddexdan kiis oo waaweyn keliya hayba gashaba maxkamaddu weligeed waaye iyo kuwii kale oo ismaan jaalli ay ku jireen kuwii kale ministrada ahaa markii laga saaro kaasna waa jiray midha afar ku noqonaa waaye ismaan jaalli iyo groupkooda u imaanayna sida loo xukumay waa ayadan waxay u baahan tahay wal wixii loo cogsaday in la arko laakiin niman saraakiila oo dalka u shaqeynaya oo aan faldambiyeed cad ku jirin oo hadday noqoto xitaa ra'yi ahaan inay kasoo horjeedaan nidaamka laakiin waxaa la ogyahay nin askari ah markuu rabo xukun askareed inuu ka hortago inuu ugu yaraan ku talageli karo inuu ammaankiisa ilaaliyo oo ciidan haysto oo inqilaab isku dayo rag sacbowleey oo guryo laga soo ururiyey oo la xiray oo lagu xukumayna inqilaab wadayna meesha ka dhacay taa ma aanay ahayn wax laga murugooda kiiskee waa kaad kiiskii saraakiisha lagu laayay saddexdan waa waxyaalaha lala yaabay oo aan rabi lahaa inaan arko waxa lagu justifikareeyay ama waxa saldhig looga dhigay intii meesha ka yeeraysay in dadkaas lagu dilo meeshaasaa laga helaa waana lala yaabay intii dhegaysanaysay iyo abukaatiyaalkii iyo kulligood oo dhan in nimankaas saddexdaa aanay galin wax lagu toogto wax ay rabeen ilaa naga og laakiin in lagu toogto waxa meesha lagu keenay wax dambi faldambiyad lagu hayo ma jirtaa in oo haddii maxkamadda appeal oo jiri la awal siday lahaa hal ama xagga fasiraadda sharciga ama markhaatiyaalka waxay sheegeen ama saddexda garsooroo qaadaysay saddexdaba waxay ka mid ahaayeen guddigii go-aanka ku gaaray in generaal caynaanshe iyo gabayre garaadahana laga xuubiyo
guddiga sare ee kacaankana laga saaro saddexdaas waa kuwa saddexdaas waa maxamuud geelle bashiir ayo mid bashiir la yidhaha jiri jiray oo markii dambe laga eriyay guddiga waayo bashiir iyo cabdiqaadir xaaji masalle marka saddexdan markii hore nimankan olla ahayeenba waa ka saareenba waayo marka anigu waagaas waxaan ma dhihi jiraba nimanka abukaatiyaalka say uga fakatay inay yidhaahdaan war niman yahow juudashiyaalkaaw adinku neutral kama noqon kartaan kiiskan waxaa tii nimankii doraad maalin dhaweyto go-aanka gaaro oo nimankan looga saaray bahalkii xataa intaas waa keeni waayeen waxay yidhahdeen okay waa daafacaynaa marka intaas keliya haddii u geli lahayd rekorka wax weyn ahaa leed aduu ma geli kartid dacwada ilaa ra'yaaba ka dhiibatay qaanuun waxaana jira principi waxaa jira oo sharciga oo dhahaa ninka judicial hadduu ra'yi ka dhiibto arrin ma geli karo marka nimankan markii ay laga saarayo guddiga iyo marka canqlaabka lagu eedeynayo maxaa u dhexeeyay garaadada laga rifayo garaadada laga rifayo maxaa u dhexeeyay ma intii dacwadu socotaan mase ka hor raggan lama xirin canqlaab lagu meedeynba markaas ka bacdeen laa xiray marka arrintaasaa jirtay oo weliga aan isweydii jiray waxaan dhihi jiray abukaatiyaalku hadday rekorka gasho lahaayeen dhihi lahaayeen arrintaas soo jeedi lahaayeen taariikhda u geli lahayd marka garaadaha waxaa laga rifay maxkamadda ka hor oo dekreeta kusoo baxday aa keelaysaa bulletin kusoo baxday oo markaas maxaa lagu haystay saas loola dhaqmay adigu waa toonkan iyo waxaan iyo dadkan iyo markay dhaqdhaqaaqa siiba gabayr waa lala socday asna waa ogaay waxaa la yidhahdaa nin geesiya oo aan baqin u ahaa laakiin mararka qaarkood waa inaan isu baqdo marka tilaabadu qaadaba isaga naftiisaaba sheegaba dhowr goor wuxuu yidhi anoo lay daba socdaan arkay iyo saasaan maqlayo saasoo kale marka waa loo geynaya marka waxaa layidhi wax lasoo wado iska miisayeen marka subaxa xukun ku dhacaya marka lagu xukumayo toogashada waad fadhisaa adigu waxbaad qoraysa go-aanka iyagoo maqlayaa loo sheegay isla meesha looga dhawaaqay maxaa dareemaysa wejiyadooda ma xasuusta hadda wejigooda inaan fiiriyay in kale iyo waxaa ka muuqday waqti dheera lasoo muuqday laakiin wax hadala ama buuqa ama qayla midna ma maqlina aan ahayn dadkii meesha fadhiyay oo publicada oo midha qaraabada la ahaa dadkan la xukumay dhawaqii ka yeerayay aan ka ahayn ma maqlina maxay dhahayeen dadka haween u badnayn markaa wada barooranay waa kasi kartaa qof la yiri waa lagu tooganaa wiilkiisii ama gabadhiisii ama xaaskiisii waa sidoo noqon karo eheladooda fadhiya meesha publicayda meel xiran maahan waa la togtay saasuu kiiskaas ku dhammaaday marka mar haddii toogasho dhacdo oo qofkii la toogtana maadaama maxkamaddu marka horeba iyagoo nool abiil loo diiday dib dambana kiiskaa looma furayo waa xirmay waxaana kala hubin inay sheekooyin badanaa jira oo dhahaya cafis ma weydiisan waa diideen waa iskala weynaayeen saddexduba waxay yidhahdeen intaan cafis weydiisan lahayn wax aanan samayn hanala toogto oo kale aan maqlaya oo waxa soomaalidu sheegaan soomaaliduna waa warbadin waay laakiin cafiska laftiisa ah qof aadan dambi aadan gelin iga cafi ma dhihi kartid raganimada lafteeda qayb ka tahay maaragtay dilba ha noqdo ayaga iyo bersintuna si fiican isu yaqaaneen markay dad wada askare wada hayeen dheel ha ugu yaraado laakiin labadan kale waa aadi wada shaqay jireen oo is yaqaaneen oo ma laga yaabaa inay fahmayeen in hataa cafis day dalbadaan aan la sii dayn doonin ma qataas waa hypothetical marka ma xal kulay laakiin ma iyo